السلام عليكم ورحمة الله. daawadayaal ku soo dhawaada qisada tuulada kaliya ee dunida ku taala oo san weligeed roob ku diin. Tuuladan ma ahan dhismayaasha dhaadheer oo ku yaala New York, mana ahan magaalo Yurub ah oo laga dhisay meesha ugu sarreysa barafka si ay u soo jiidato dalxiisayaasha adduunka. Waxa ay ka dhisan tahay daruuraha korkooda, waxaana ku nool dad gaadhaya qiyaastii 4,040 qof, waxaanay dhoofisaa bunka ugu fiican adduunka. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato tuuladan? insha Allah muuqaalkeenan ayaan kugula wadaagi doonaa. waa tuulada Al-Xatiib ee ku taalla gobolka Xiraas ee degmada Manakha ee galbeedka caasimadda Yemen ee Sanca. halkaas oo aad ku arki karto meelaha ugu sarreeya ee buuraheeda sawirro rabbaani ah oo aad u qurux badan. tuulada Al-Xatiib waxaa laga dhisay dhinaca buur aad u dheer oo aad moodid inay daruuruhu hoosteeda marayaan. inkasta oo uu jooggeeda ay dhulka ka sarreysa uu yahay 3,200 mitir, haddana jawigeedu waa mid diiran oo dhexdhexaad ah. dadka ku nool tuulada Xatiib ayaa waxay isha ku hayaan roobka hoostooda ka da'aya iyadoo aanu roobku helin. tuuladan waxa ay ku taallaa galbeedka caasimadda Yemen ee Sanca, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay gobol buuraley ah oo ka kooban dhowr tuulo oo ay ku hareeraysan yihiin darbiyo dhaadheer una eg qalcado. gobolkan buuraleyda ah ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid istiraatiiji ah laga soo bilaabo boqortooyadii Ximyar oo ahayd boqortooyo Yemen ka jirtay waagii Islaamka ka hor, maadaama uu ku yaalay meel istiraatiiji ah. qaar ka mid ah sheekooyinka taariikhiga ah ee ku saabsan tuulada Al-Xatiib waxay sheegayaan in qoyska Al-Saalixiya ay dhiseen tuuladan intii u dhaxaysay 439 ilaa 459 hijriyada si ay isaga ilaaliyaan weerarada cadowga, iyadoo nashqadeedu ay isugu jirto qaab qadiim ah iyo mid casri ah labadaba. tuuladan waxaa ku yaala in ka badan 5 masaajid, hudheelo dhowr ah, makhaayado dalxiis iyo hal cusbitaal. waxay kaloo leedahay beero, jirdiinno 2 albaab oo waardiye ah leh iyo dhismayaal kale oo ka kooban guryo, baarkinno iyo koronto gaar ah. tuuladan waxaa lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO sanadkii 2002 iyadoo loo tixgeliyey inay tahay goob qiimo caalami ah oo aan caadi ahayn ku fadhida. haddii aad ka heshay sheekadan, ha ilaawin inaad nagu taageerto like, naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay si aad u hesho sheekooyinkan oo dhan insha Allah.